warbixintan waxaan ku eegi doonaa 5 cudur oo dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool farabaan ku haya taas oo marka ay tagaan wadamada shisheeye inta badan ku dhaca Soomaali badan oo qurbaha tagay iyagoo caafimaad qaba ayaa waxa dhacda in muddo kadib ay arkaan caafimaadkooda hoos u dhacay inta badan qurbaha waxa laga hadlayaa iyadoo dadka Soomaaliyeed ee yimid wadamada reer galbeedka ay dabeecadda iyo sidoo kale deegaankuba ay saameyn ku yeeshaan caafimaadkooda waxa arintan loo aaneeyaa waxa markiiba ku yiraahdo fitamiinada qaar gaar ahaan fitamiinka muhiimka ah ee la yiraahdo fitamiin D iyadoo sababta uu Soomaalida wadamada qabow ee reer galbeedka degan ugu yiraahdan inay tahay jirkooda oo qorraxda la qabsaday haddana madow labiskooda gaar ahaan haweenka iyagoo cunin cunto isku dheelitiran sida kalluunka khudaarta cagaaran sida ay dhaqaatiirtu ku warameen Huda Xaaji Nuur waa agaasimaha xarunta daryeelka caafimaadka ee Caafi ee ku taala magaalada Bristol ee dalka UK Soomaalida degan Ingiriiska iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay ayay ka caawisaa xagga caafimaadka waxayna BBC-da u sheegtay caafimaadku waa waxa ugu muhiimsan nolosheena waana in aad markaad gudaha joogto aad si joogto ah isu baarto oo aad la socoto xaaladaada caafimaad adigoo dhayalsan waxa jirkaaga uu ku sheegayo agaasimaha Caafi ayaa ka hadashay 5 cudur ee ugu waaweyn ee Soomaalida qurbaha ay la tacaalaan ama qatar ku haya noloshooda cudurka koowaad waa macaanka markaad cunto wax macaan jirkaagu waxa uu u baahan yahay inuu isticmaalo sokortaasi haddii aanu jirkaagu si habsami leh u isticmaali karin sokortaas qayb kamid ah ayaa ku dhagaysa unugyada dhiiga iyadoo dhiigana uu ka buuxsamayo xaaladda sonkorowgu waxay horseedi kartaa cagaha oo lagu gooyo indhalaan iyo sidoo kale wadna xanuun haddii aan la xakameyn oo aan baaris joogto ah qofka uusan isku sameynin waxaana inta badan uu sababtaa cunto xumo cayilka iyo jimicsi la'aanta cudurka labaad ee ay dareemaan dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool waa dhiigkarka marka wadnaha garaac sameeyo wuxuu dhiiga u habaa jirkaaga si uu u siiyo tamarta iyo oksijiinta uu u baahan yahay qulqulka dhiiga ayaa cadaadis ku sameynaya gidaarka xididada dhiiga xoogaa cadaadiskan ayaana la yiraahdaa dhiigkar cadaadiska dhiiga ma ahan wax aad dareemi kartid ama aad ogaan karto habka kaliya ee aad ugu ogaan karto ayaa ah in aad cabirto UK dhiigkarka ayaa ah kan ugu weyn ee keena dhimashada degdega ah iyo sidoo kale curyaannimada isagoo adeegsanaya faali wadna xanuun iyo wadna isaag saddexdii qofba hal qof ayaa qaba dhiigkarka maalin walibana 350 qof ayuu haleelaa dhiigkarka laga hortagi karo ama wadna xanuun uu keenay sida ay sheegaan ururka dhiigkarka ee dalka UK cudurka saddexaad ee ay la kulmaan Soomaalida qurbaha ku nool waa kansarka cudurka kale ee Soomaalida qurbaha aad ugu fiday sida ay sheegeen qiyaasaha aan rasmiga ahayn ee ay sameeyeen goobaha bukaan socodka ee la booqdo waxa kamid ah kansarka macnaha guud ee kansarku waxa weeye iyadoo aanu si caadi ah u shaqeynin unugyada jirka laakiin waqtiyadan dambe heerka badbaadada ee xanuunkaasi ayaa kor u kacay iyadoo ay aad muhiim u tahay in hore loo ogaado oo qofku hadii uu shakiyo ay tahay inuu isbaaro dadka qaar ayaa sii daaya ama ka weysada in ay dhakhtarkoodu ay booqdaan cudurrada kale ee Soomaalida faraha ku haya waxa kamid ah neefta ama xiiqda sida ay qeexday hay'adda caafimaadka ee Britain NHS xiiqda waxa keena marin haweedka samabada oo barara qaab kala duwan ayayna dadka u saameyn kartaa astaamuhuna way isbedeli karaan muddo kadib xiiqdu waa xaalad muddo dheer jirta oo u baahan daaweyn joogto ah gaar ahaan neefsiyaasha la nuugo si looga hortago astaamaha maalinlaha ah iyo si loo yareeyo in aad qaado xiiqda astaamaha xiiqda waa in aysan faragelin howl maalmeedkaaga haddii aad isku aragto astaamaha xiiqda markaa waa in aad la tashataa kooxda xiiqda ama dhaqaatiirta dadka qaarkood waxay qabaan xiiq daran taasoo aan lagu daweyn karin daaweynta caadiga waxayna u baahan tahay in uu daweeyo khabiir ku taqusay xiiqda ama neefta xanuunada kale ee Soomaalida qurbaha ku nool dhibaatada ku ah waxa kamid ah dhimirka ama maskaxda warbixin la soo saaray ayaa lagu sheegay in qof kamid ah 6 qof ee UK ku nool uu qabo xanuun dhanka maskaxda ah hay'adda caafimaadka Britain NHS ayaa baahisay in xanuunkaasi uu saameeyay da'doodu ay u dhaxayso 16 ilaa 64 sano ha ahaato arrin qoys ama saaxiib daris ama qof aad shaqo wadaagtaan fursaddu waxay tahay in dadka oo dhan ay garan karaan qofka uu xanuunkan saameeyay Dr. Barre Jaamac oo ka howlgala gobolka Northern Ireland ayaa sheegay in Soomaalidu ay kamid
kamid tahay bulshooyinka aad ugu nugul cudurka maskaxda waayo buu yiri waa ogtihiin duruufaha soo qabsaday dadka Soomaaliyeed ee qurbaha qaxootiga ku yimid oo ah dad dagaalo iyo abaaro ka soo qaxay iminkana duruufaha qurbuhu ay saameeyeen sidoo kale isticmaalka maandooriyaha walwalka iyo burburka qoyska ayaa qayb weyn ka ah dhibaatada haysata dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool